fiirisan garoonka biirada oo kale waxa ka dhaca maalin walba. I was there in Mogadishu. kolba markaanu dhaano aniga Xasan Sheekh iyo groupkayagii aan cid la hadalno arrimahan wadanka ka taagan oo UN ka amba European Union ka amba United States ka amba British delegate inaanu airport ka markaa tagno saanu iyaga uga kulano rather than then coming to the capital city inside to talk to us inaynu gaadnay meel dadka Soomaalidu dhulka ay yaalaan oo adduunyadu ay isku sheegtay oo Museveni aw AU ga ka yidhi Somalis are the shame of Africa oo ka yidhi way caddahay aniga waxaan u socday immigration ka control bil qaylinaysa ayaa lagu marsiinaya meeshaan soo maray ma aysan qaylin macnaheedu waxa waaye ninkan wax qarxanaya ma wato telefonkii igu horeeyay markaan jaanka gashtay niman meesha ka shaqeynay ma Ugandesa ma Iskaya nina soo doodo wuxuu dhahay dib u laabo gacantana ay igu mareejiyay shaadkayga dhabarku ka jeexjeexmay askari meesha jooga wuxuu dhahay war ninkan waa xildhibaan askari Ugandesa liigu yeer gacanta iga qabto sida ruuxiisa You can do You can do no way. runtii waxa igu yaabadnaa taliyihii dhammaa ee ciidanka booliska sheeganaya oo lagu garaacay airportka Muqdisho isagoo no way ku ay waa loo wada jeedaa wargaal waa idin duleysanayaa gaalada iskaga nin uu gaal sharaf u keenay malaha no way laga keenay waa airportka Muqdisho waa wadankiisii taas ay ugu yaabadnaa intaan kay noloshiisa intii aan airportka ka hawlgalnay marxalad waxa naga haysatay aad iyo aad noo dhibaysa qaasatan hadii aanu wariyalnahay kaamaradaha iyo qalabka wax lagu duubo sida raadiyaasha airportka markii aanu galayno qoladan Amazon oo ku qoran baarista waxay sameeyaan inay kaamarooyinka aruuriyaan yaal inay u geeyaan oo uu dhareer ku daadiyo urursada kaamaradaas afka loo galiyo arintaas ayaa cabashadeedu ku saabsan tahay waxaan indhahayga ku soo arkay inan yar oo reer Burundi ah oo magaalada Bujumbura ee xarunta u ah waxaan ka 30 miles ka yimid small village waa laba alif leh oo amar bixinaya Soomaali Cornel oo adig fadhiisi adiga yar bay barteen Soomaali adiga fadhiisi leh oo annaka nagu yiri annako xildhibaan nagu yiri adiga xagga u bax half my age laba alif lah in my own capital city halka inaynu gaadnay qof waloo Soomaaliyeena uu ka daragsan yahay waa loo yahay and that's what I think he's trying to tell us that's true gaalada horjoogsiga wadiyo gumaysidoonkooda guuldariyo halaag bay dhaxlaan gurubkii raacayo misna waxay galaafanahayaan ciidan gariifayno baybalinay gacmaha ugu shubaan aadni gabigooda gadashana kuwoodii u nugul gogol ugu iibsho ilaa waxaan gidaadaynay waa baruur la goostaye qaarimaanka laga guuriyay hubaashi goobo